KNN kusoo dhawaada xubinta maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay waa talaado taariikhdu waa 12 bisha February sanada 2019 waa maalinta 43aad ee sanadkan waxaa sanadkan ka harsan 322 cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacay waxaa kamid ah maanta oo kale sanadii 2010 waxaa isbitaal ku yaala dalka Sacuudiga ku geeriyooday Allah u naxariistay Salebaan Colaad Rooble oo ahaa wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyarada xukuumadda xilligaas shaqeynaysay marxuumku waxa uu kamid ahaa dadkii ku dhaawacmay qarxii bishii December 2009 ka dhacay hotelka Shamo oo ay wasiiro kale ku geeriyoodeen sidoo kale isla maalintaas Saalax Badbaado oo ka tirsanaa xildhibaanadii xilligaas jiray ayaa laga waayay hotelkii uu magaalada Muqdisho ka deganaa Saalax Badbaado maalmo kadib waxa lagu arkay suuqa Bakaaraha oo uu isaga dhiibay al-shabaab markii dambena waxa uu isku qarxiyay meel u dhow garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho maanta oo kale sanadii 1818 dalka Jili ayaa madaxbanaanidiisa waxa uu ka qaatay dalka Isbeen oo haysan jiray maanta oo kale sanadii 1912 dalka Shiinaha ayaa lagu dhawaaqay inuu ka hoos baxay nidaamka boqortooyada waxaana lagu dhawaaqay inuu jamhuuriyad yahay maanta oo kale sanadii 1949 hogaamiyay xilligaas ee ururka Ikhwaanul Muslimiin Xasan Albana ayaa lagu toogtay magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar ugu dambeyn maanta oo kale sanadii 1953 dawladda Soofiyeedka ayaa xiriirka diblomaasiyadeed waxay u jartay xukuumadda Yahuudda xubintii maanta oo kale maxaa ka dhacay caalamka aygeynta